degmada Ceelberde ee gobolka Boqol ayaa sameynaysa horumar dhanka adeegyada bulshada inkastoo degmadan ay ku taalo xuduudda Soomaaliya ay la wadaagto ismaamulka Soomaalida Itoobiya haddana maamul ahaan waxay hoos tagtaa gobolka Boqol ee Koonfur Galbeed degmadan oo bulshada dhibaatada ugu weyn ay qabeen ay ahayd dhanka caafimaadka waxaa dhawaan bulshada oo isxilqaan sameeyay ay dhisteen cisbitaal degmada ay leedahay waxaana bulshada ay ka helaan adeegyada caafimaad ay u baahan yihiin cisbitaalka oo aan booqday waxaan ku arkay qaybaha shaybaarka qaybta qaliinka lagu sameeyo waxaana waqtigaas aan booqanayay ku jiray bukaano xanuuno kala duwan soo ritay Dr. Maxamed Cusmaan Muuse waa agaasimaha caafimaadka cisbitaalka waxa uu Universal TV uga warmay sida cisbitaalka bulshada ay ku dhisteen iyo dhibaatadii jirtay ee uu wax ka qabtay cisbitaalka maalintii la furay ilaa hadda bukaanka numberka OPD-ga wuxuu marayaa ilaa iyo maxaan ku dhahay 867 qof oo la qaabilay oo aan maanta ku jirin bukaanada maanta aan qaabilayno numberka qaliinka aan sameynay ilaa 84 qof waaye qaliinadu waxay isugu jireen qaliino emergency ah oo maxaan ku tiraa sida laba gabdhood oo kala ayaan ku qalnay oo halkan maxaan ku dhahay nasiib wanaag maxaan ku dhahay ay noqon jirtay gabdhaha noocaas oo kala in loo qaado goday yani qaliinka halkan lagu sameeyay waxa kale oo ku jira qaliimo oo maxaan ku raadaaday yani dhibaatooyin ka yimid xagga yani dad yani toorey isku soo dhuftay oo kale waxa jira qaliimo maxaan ku dhahay elective waxa la yiraahdaa qaliimada caadiga dadka ay la socdaan sida burooyinka eernada oo kale waxyaabaha case eerna oo inoo jiifaan waxa kamid ah bukaan hadda mardhow aan soo booqanaynay oo ay gabar maxaan ku dhahay si dabiici yani waxa waa si oo maxaan ku dhahay minkii ayaa iska soo dhacay yani uterine prolapse la yiraahdaa وانا مقادير waxayna kamid tahay gabadhaas meena curanin xataa meena dhalin yani waxyaabaha kiisaska oo research in loo baahay u baadanayo waa gabadhii oo gabaraan curanin oo haddana maxaan ku raadaa haddana uterine prolapse oo ku dhacay muddan la nooleed xanuunkaas ilaa iyo 7 sano ayay la nooleed gabadha hadda waa taad arkaysan waxaan u sameynay yani qaliinkii ayaan u sameynay minkii ayaan ka soo saarnay يعني الحمد لله هذا واقف في عنتها وحقيق هرتا إسبتال كان محن كلها وحكوا أساس من بعيد بالشدة مركز يتمد دبدت يعني محن كلها جروب كدكاتير تو أنا قاعد أنا كتير يا نظام كان مملكة يعني سيستم إسعالقان أو كوست ريكوفري يعني سمينا أو بكان كوحن كيا عنا خدمة ديار أو محن كلها أو سيرفيس كير يعني موتور كشدال كيسي يوم محن كلها شقة ديار تاع سعته لكن محن كلها واحد هيئة وهذا نتاكلسه ما جرته لكن أنا قاعد سيسكن فولنتير يعني شقة أسي والنور إلا أنا حنا وحن رجينا أنت عن كهلنا يعني محن كلها عندنا قاعة وسوشيس إلا وقتي إن نسيو دون أنت تزوج وأنا وصلنا كحرقني bulshada magaalada Ceelberde ee gobolka Boqol ku nool waxay haystaan nabadgelyo waxaana amniga deegaanka gacanta ku haya ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya koonfur galbeed kuwa ka socda iyo ciidamo kale oo dawlad deegaanka Soomaalida jooga dhalinyaradan degmada ku nool waxa ay isku madadaaliyaan waa sportiska oo kaliya oo waxay sheegeen in wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawlad goboleedka koonfur galbeed fursad fiican aysan ka helin qaar kamida ayaa ka hadlaya dhibaatooyinka ay qabaan magacaygu waa Maxamed Cabdi Dheere waxaan ku suganahay degmada Ceelberde waxaan rabaa inaan ka hadlo qaybta isboortiga waxaan rabaa inaan ka hadlo amniga nabadgelyada degmada Ceelberde waxaan dhihi karaa waa degmada Soomaaliya markii la dhaho ugu nabadgelyaysan oo ay xilliga rabto socon kartaa waqti aad rabto iyo malaha cid isku mashquulaysan ma laha dad badan baa magaalada degan dad badan baa ku wada nool waa nabadgelyo magaalada wax dhiba kama jiraan أنا waxaan kamid ahay dhalinyarada degmada Ceelberde teamka la yiraahdo Bosnia waa teamka degmada ugu magac weyn Bosnia markii la yiraahdo degmada Ceelberde markii la yiraahdo hadda league baa socdo waxa qabtay gudoomiyaha degmada Ceelberde hadii aan wali mu bilaaban laakiin waxa weeyaan waa diyaarsan yahay oo inuu bilowdan rajayna bari dambe duleera برشكم مغنمين دنيرتا انت بدن ما shaqeeyaa shaqo la'aan baa haysto balse haatee waxay aad ugu maadashan sportiga waxay aad
arqalad u saaran isboortiga sababtoo ah si ay uga badbaadaan waxyaabaha nabadiidka iyo ka hor imaanaya iyo taariifka kale balse haatee waxay anu dhilahaa Bosnia ilaa 10 kooxood dhanka waxbarashada degmadan ma lahan dugsiyo sare iyo jaamacado waxa kaliya jira dugsiyo hoose iyo dhexe maamulaha iskuulka hoose iyo dhexe ee Ugaas Khaliif ee degmada Ceelberde ayaa ka waramaya baahida waxbarasho ee degmada ka jirta iyo sida ay ugu baahan yihiin inay helaan dugsiyo sare iyo jaamacado Maxamed Xaaji Xuseen waa gudoomiyaha waxbarashada degmada Ceelberde wuxuu sheegay in dawladda dhexe iyo maamulka koonfur galbeed loo baahan yahay inay iska xil saaraan in degmadan ay yeelato dugsiyo sare iyo jaamacado isagoo sheegay in arday boqolaal ah oo dugsiyo sare la'aan ah degmada ay joogaan iskuulkan waxaa la aasaasay 1973 ayaa la aasaasay muddo dheer ayuu soo jiray xilligii dawladda uu soo shaqeynayay ilaa dawladdii dhexe ayuu soo shaqeynayay xilligii burburkii iyo cagahana uu soo shaqeynayay dabcan wad aragtana iskuulku waa ilaa fasalka 8 baa hadda waqti xaadirkan uu ku egyahay hoose dhexe weeyaan iskuulku marxalado kala duwan ayuu soo maray marar uu soo xirnaayo dantii saamixi weydo dhulka xogaa colaad iyo wax ka jireen waa jiray laakiin inta badan iskuulkan waa uu shaqeynayay hadda 2000 ilaa 2007 ilaa hadda uu shaqeynayay si toos buu u shaqeynayay ardadii ka baxday waa joogan magaaladii joogan qaarna waa maqan yihiin iskuulkan dadka ka soo baxay hataa ay kan waxa ku jiro dad maartay dalka wax ka noqday oo maartay wasaarado ama wasiirro soo noqday ayaa ku jiro ama xildhibaanada waqti xaadirkan xildhibaana oo ka soo baxay ayaa jira iskuulkan hoose dhexe Ugaas Khaliif Ceelberde hadda yaa gacanta ku hay marka iskuulkan hadda wax gacanta ku hayo oo hay'ad ah oo ama dawlad ah oo fiican oo hadda gacanta wali la wareegay ma jiraan dawladda koonfur galbeedna lama wareegin dawladda federaalka ana wali lama wareegin hawshay ku socota markii maamulayo dabcan dadka iska wax u qabsay inta badan waalidiinta iyo maamulka degmada oo wixii maarta ayaguna karaamkooda ay sameeyaan oo nala dadaalo maxay ku saacidaan maamulka degmada inta badan dhiirigelin baan ku haysanaa marmar ay kan mushaaraadka wax bay naga macallimiinta ka qabtaan wixii maarta dayacan oo iskuulka ka dayacan marmarka qaarkood way maarta way dayactiraan inta badan hadda waqti xaadirkan dadka shacabka degmada baa gacanta ku hayo isaga baa iswado oo maadaama lacagna laga qaadin oo cunugii waxa laga qaadaa $2 ayaa laga qaadaa degmadan xuduudda ku taala ayaa haweenka ka ah kuwa ugu badan ee ganacsiyada ku leh magaalada laakiin haweenka kawaanka hilibka wax ku iibiya ayaa sheegaya in dhibaato ay ku qabaan goobta ay u soo shaqo tagaan waxay ka waramayaan dhibaatada ay ku qabaan Bismillahirrahmanirrahim magacayga Cusub Ibrahim Axmed bali dhahaa waxaan ka shaqeeyaa hilibkan ka shaqeeyaa hilibkana isma bixiyo marmar badan uu nagu baaraa lafiis isma keeno qiimaha aan ku soo gadno isma bixiyo intaasan maalin joogana ka raadinaa meesha aad hilibka ku ganacsataan waa meel noocee meel hadda dayactir u baahan weey oo maxaan ku dhahaayay aan ilbaab lahayn oon lahayn maxaan ku dhahaayay miisas aan hilibka saaran lahayn oon shabaq aan taqsiga iyo aan wasaqda kaga cishana aan lahayn marka waxaan u baahanahay qalabkaas aan u baahanahay firinjeero aan ku kaydisano oo gashana ma haysano marka hilibkii maanta kugu baaro maxaa sameynaysaa markuu nagu baaro waan qaadnaa gurigaan geynaa waan iska karsanaa marka berri neef kaloo deyn haddana soo qaadnaaha kiina waa nagu leeyahay marka ilaa adi 3 sano way dhan tahay intaan hadda ka shaqeynayo ka hor maxaa qaban jirtay 3 sano maqaayad baan shidi jiray kaashaa baan karin jiray maqaayad baan shidi jiray maxaa ku dooratay marka inaad ganacsigan u soo bedelato waxaan ku doortay markii hore maalin joogga ilmaha waan ka heli jirnay wasaaradda xanaanada xoolaha isku duwaha u jooga degmada Ceelberde ayaa sheegay in dhismihii wasaaradda xanaanada ee ka howlgali jirtay dhismo u baahan yahay sidoo kale xoolahana in lagu qalo meel magaalada gudaheeda ah taas oo uu sheegay inay ka dhalan karto khataro caafimaad
wuxuu ka sheekeynayaa dhibaatadan ee nadaafad darrada ah sida looga bixi karo. maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee degmada Ceelberde waxaan saaka kormeer ku tagnay suuqa kawaanka ee xoolaha lagu qalo waana soo indhaynay sidoo u yaalay iyo xaaladiisa waxaan ku soo aragnay waxyaalo badan oo aan aad u qurux badneen oo xitaa caafimaadka deegaanka aan ku fiicnayn oo xoolihii wixii la qalayay iyo lafihii iyo dhiigii iyo waxyaalo la isgarab yaalaan waxaa kale oo soo marnay xafiiska degmada xaruntii hore ee xanaanada xoolaha ee ku shaqeyn jirtay oo ah meesha hadda aan taaganahay ee burbursan indhiina ku aragtaan sidaas awood waa aragtaan inay tahay meel burbursan oo meel shaqaysa ahayn sidaa darteed waxaan codsanaynaa cid walba oo garanaysa qacan ka geysan karta sidii wasaaradda xanaanada xoolaha ee heer maamul goboleed ilaa heer federaal iyo hay'adaha bahwadaagta ee ka shaqeeya caafimaadka xoolaha in ay noo dhisaan xaruntii degmada oo arinteeda ku artaan oo burbursan oo ilaa 1991 soo burtay kadib aan shaqo gelin ama aan laga shaqaysiin sidaa darteed si walba oo ay tahayba wax walba waxa ugu muhiimsan ma garanaysaa ay bulshada deegaanka waa deegaan xoolo dhaqataa waa deegaan 99% ay xoolaha ku tiirsan yihiin hilibka la cuno iyo caanaha la cabo sidaa aweed meeshan aan taaganahay waa burbursan tahay meel bulshada lagu shaqeeyna ma aha meel hadda ma garanaysaa ilaa 20 iyo dhowr sano ilaa 30 sano shaqeysana ma aha wasaaradda magaceed waa jiraa shaqaalihii waa joogaan meel ay ku shaqeeyaan oo service-ka bulshada ku gaarsiiyaan meel ay haystaan ma laha madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa mar gaaray degmada Ceelberde wuxuuna sheegay in degmada ay heli doonto dugsiyo sare sidoo kalena adeegyada maamulkiisa lagu ballaarin doono degmada Ceelberde ee gobolka Bokool taas oo aan la ogeyn sida ay ku suuragali karto ballanqaadyadii madaxweynaha Muxuddin Xusni bandhiga Universal TV Baydhabo.